asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badana ku xiran janaalkan. waa mar kale iyo muuqaal cusub. haddaba muuqaalkeenan waxaan uga hadlaynaa dabcan musalsalka walaalaha maxaa ka cusub, maxaase kusoo kordhay xalqada nagu soo wajahanay 61aadba. daawadaintaana muuqaalka udagelin fadlan daawada muuqaalka like noo saar, sidoo kale haddaad ku cusub tahay janaalka walaala family subscribe noo saar. waa maasantitaa ka bacdi ee soo dhawow. waxaan idiin bilaabe xalqadii u dambeysay ee 60aad. waxaan ku aragnay dhacdooyin yaab leh. dhacdooyinkaas oo waxaa ka mid ahaa gabadhii Suuse lagu magacaabayay oo Cumar khiyaano aad weyn ama argudsi aad weyn u geysatay. haddaba maxaa ku kalifay argudsigaasi? maxaase ku kalifay inay Cumar khiyaanto ama ay si daran uga argudsato? se Cumar falcelintiisu siday noqon doontaa xalqada soo socota? waa tahay muuqaalkan ayaan uga hadlaynaa, iyo sidoo kale Cumar iyo Leyla halka ay ku dambeyn doonaan. muuqaalka like noo saar. balse ugu horeynta waxaan idiin sheegaynaa oo macluumaadka hore idiin sheegaynaa ayaa wuxuu yahay gabadha Asiya lagu magacaabayay sidoo kale Uljani sidoo kale Duruug waxay ogaadeen natiijada, laakiinse Cumar laba hubay inuu ogaado natiijada DNA-ga. sidoo kale waxay ogaadeen in Axmed Ilmaas uu dhalay Cumar ayay ogaadeen, laakiinse ilaa waqti xadirkan lama hubo natiijada Cumar inuu ogaaday, Cumar inuu ogaaday aabihiisa lama hubo, laakiinse Duruug iyo Asiya oo murigo badan ka muuqatay iyo sidoo kale Uljaan waxaa loo badinayaa in ay ogaadeen. waa tahay saan wada ognahay xalqadii u dambeysay Cumar wuxuu lacagtii deynta ahayd wuxuu u celiyay gabadhii Leyla ahayd. farta ayuuna mar kale ka saaray, sidaas ayuuna ku siiyay ahayd lacagtii ay ku lahayd. Leylana waxaad moodaa markaas inay Cumar sii jeclaanaysa marba marka kasii dambeyso. isla xalqadii u dambeysay walaalkeeda Toolga ayaa weydiiyey oo ku dhahay adiga Cumar wax dareena maad u haysaa? su-aashaasina way ka mameereysay oo maysan ka jawaabin ayay ahayd, laakiinse Toolga waa uu dareemay. iyadoo ka jawaabi rabtana Cumar ayaa soo galay ayay ahayd, isagoo wada lacagtii ay siisay hadda ka hor deyn ahaan ay u siisay ayuu waday. fartana waa uu ka saaray, waxayna la tahay lacagtaasi inay u celin doonaan aabbahooda dhibaatadan xun u geystay yarka lagu magacaabo Toolga. waa tahay Suuse goormay Cumar kusoo laabanaysaa? haddaba waxaa la sheegay Suuse iyo Cumar inay mar kale istagaali doonaan, markaana lama inay si sahal isugu soo laaban doonaan maadaama ay kala aarguteen. Suuse waxay isku dayi doontaa in ay la sii socoto yarka lagu magacaabo Sarbi, maadaama markii u dambeysay xitaa cashay u raacday, sidaas ay kula sii socon doontaa. Cumarna arrinkaas aad ayuu uga xanaaqi doonaa, isagana wuxuu isku dayi doonaa in uu Leyla la sii socdo, laakiinse qofka mar waliba maseerkiisu u badan doono Suuse ayay noqonaysaa. waxaa laga yaabaa mar kale Cumar fursad siiyo, laakiinse waxaa la hubaa xalqada soo socotay in ay sidaasi ku kala tagayaan oo isugu soo laabanaysa markaan ay adkaanayso. Cumar iyo Leyla ayaana loo badinayaa isku soo dhawaanshahoodu inuu fiicnaan doonto, inkastoo xalqada soo socoto mowduuc ka muhiimsan uu jiro. Cumar ayaaba ogaanaya Soomaha aabihiisa, arrimahaas ayaa lagu mashquulayaa. marka waxaa laga yaabaa in Leyla waqti loo heli waayo, ama Cumar iyo Leyla wada socodkeeda waqti loo heli waayo, laakiinse waxaa la hubaa kala taga ku imaan doona Suuse iyo Cumar. waa tahay waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid muxuu yahay kala tagyadan faraha badan ee arkayno. sababtoo xalqadii u dambeysay waxaa si rasmi u kala tegay dabcan IBK iyo sidoo kale yarka lagu magacaabay Beerka ayaa si rasmi u kala tegay oo kala dhamaatay ay ahayd. sidoo kale xalqada soo socotan waxaa kala tagi doona Suuse iyo Cumar. waxaasoo dhan maxaa kalifaya? haddaba badi waxaa loo badinayaa in la rabay in taxanaha wixii sii bato, daawashadiisuna ay fiicnaato, si habeenka Axadda si qurux badan loo daawado dhanka TV-ga ahaan, maadaama ay xalqad soo socoto xiiso leedahay xalqadii haddana soo dhaafay iyo kuwa soo socdaba. saas darteed ayaa laga yaabaa in waxaan oo dhan u sameynayaan, laakiinse afartaas oo keliya ayaa kala tegay. kolley laba kale oo caan ma jiraan, marka oon ka ahayn Asiya iyo Duruug, laba ka caansan oo kale ma jiraan. labadaasina marnaba niyadeeda ha gelinay inay waqti xaadirkan ama xalqadahan soo socday wax ku dhowbay inay kala tagaan ama ay dhibaato ku timaado, inkastoo iyagu markaabay heshiin jireen. laakiinse markaan dhibaatada aadka u weyn waxay ka jirtaa Beerka iyo sidoo kale qoftii lagu magacaabay IBK qaabkay u heshiin doonaan. kolley waan arki doonaa xalqadaha soo socda qaabkay u heshiiyaan iyo qaabka ay noqoto macaamiladoodu ama qaabkay u wada dhaqmaan waan arki doonaa. waa tahay haddaba waxaa laga yaabaa sidoo kale inaad isweydiinaysid
suuse iyo cumar muddo intee laeg ayay kala maqnaanayaan ama ay isku dhacsanaanayaan. waxaa loo badinayaa in ay kala maqnaan doonaan oo isku dhici doonaan wax ku dhow 3 xalqadood ilaa 4 xalqadood, inkastoo aysan yareyn oo celcelis ahaan ay noqonayso bil ku dhowaad. haddaba bishaasi cumar wuxuu ku mashquuli doonaa xaafadooda iyo sidoo kale aabihiisa dhibaatada kala dhaxaysa iyo sidoo kale dagaalka xooggan ee kala dhaxayn doona Sarbi iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Yasmin oo aad uga soo horjeedsan doonta yarka lagu magacaabo Cumar. inkastoo markaan Sarbi aad isku hayaan, xitaa Sarbi wuxuu gaaray heer uu la saaxiibo suuse. Cumar arrinkaasi aad ayuu uga xanaaqay ayay ahayd. waa tahay ninkii Caakif ahaa maxaa ka cusub, maxaase ku soo kordhay? haddaba sida loo badinayo Caakif Atakuul waxa uu ku soo laaban doonaa taajirnimadiisii hore ayuu ku soo laaban doonaa, inkastoo Cumar lacagtiisii uu soo celiyay, laakiinse taajirnimadiisii ayuu ku soo laaban doonaa. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid Caakif iyo Axmed Ilmaas ma laga yaabaa inay isdagaalaan ama ma laga yaabaa in ay mushkilad dhex taalo oo doonto. horta waqti xaadirkan Caakif Atakuul Nabhad wax kala dhexeeya ma jiro, xitaa haddii Nabhad uu uma saari lahaa, yacni Nabhad wax kala dhexeeya ma jiro. asaga mar waliba go-aankiisii u dambeeyay uu qaatay wuxuu ahaa in uu Suusan ku adkaysto, xitaa haddii ay noqoto inuu raali geliyo ama in haddii ay noqoto inuu daba ordo. ilaa waqti xaadirkan Suusan ayuu daba ordayaa, Suusan ayuuna ku adkaystay. markay lama ahan Caakif iyo Axmed Ilmaas inay isqaban doonaan, sidoo kale isma qaban doonaan ama iskama hor imaanayaan ama dhibaato ma dhex ooli doonto ilaa ma Caakif ku soo laabto heerkii uu markii hore taagnaa ama noloshii markii hore uu ku jiray ee shirkadda uu lahaa iyo sidoo kale taajirnimada uu lahaaba. yacni Caakif iskama hor imaanaya ninka lagu magacaabo Axmed Ilmaas. haddaba sidoo kale Caakif ma laga yaabaa in uu khaarijiyoba ninka lagu magacaabo Axmed Ilmaas, ama yacni Caakif gacantiisa waxyaalo badan ayay sababsatay, sida in nin hadda lagu magacaabo Irhaan haday xastiin oo ahaa Caakif saaxiibkiisa ay xabad ku dhacdo, sidoo kale in uu dilo Weli, sidoo kale inuu sabab u noqdo inay dhimaato islaantii Khadiija lagu magacaabay asiga dhashay. yani Caakifkan waa nin balaayo ka dhacday oo wada garanayna waxyaalo dhan uu geystay. marka Axmed Ilmaas iyo asaga iska hor imaanshahooda ayaa aad iyo aad loo sugayaa, waa Caakif iyo Axmed. waa tahay daawadee muuqaalkan kooban waxaan ugu talagalnay inaan badi uga hadalo Asiye, waxaan ka wadaa sorry Cumar iyo Suuse iyo sidoo kale Leila. halka ay ku dambeynayaan waxay la tahay inaad xagga fikra ka qaadatay. daawada muuqaalada xiga la socdo anigoo saaxiibkeena Khalid waxaan idinkaga tagayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.